kooxda halkan academy hana baasha diiriye waxaan leeyahay sacab iyo moraal ha lagu soo dhawo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. Salaanka bacdi waxaan aad maxay u bogaadinayaa ama u hambalyeeynaya kooxdayda halkan academy oo caawa ay tahay sanad guuradeedii 8aad. waxaan sidoo kale bogaadinayaa marti sharafta qaaliga ee xafladan ka soo qayb gashay. inta haddaan ka soo laabto anigoo ka hadlaya afka magaca ardayda halkan academy waxaan maxay haytooyeen caawa halkan aan sidoo kale aan ka yar xusi doonaa maxay haytooyeen hayaankii ama geedigii uu soo galay halkan academy waa gudoomiyaha eega Samatar Jaamac Migaag Samatar ahna qofka maanta halkan soo gaarsiiyay runtii kullay hanahan halkan waxaan ku soo biiray 2019 bishii 3aad maalin khamiis ah maalintaas oo ay maxay ka howlgelayaan ama ay alimitada ku lahaayeen ama goobtii aan kula kulmay ahayd goobta Alfa kullay taariikhaha laga soo sheekeynay halkan waad ka warhayseen kullay qayb badan baan ka soo gaadhay hayarka maanta ay taagan tahayna kullay shakhsi ahaan hanahan waxaan aad ugu bogaadinayaa waa Samatar Jaamac Migaag waxaan sidoo kale iyaguna laga maarmaan ah oo iyaguna aan bogaadinayaa caawa goob jooga aasaasiyaashii halkan academy toddobadii xubnood ee la soo xusay iyo qof kasta oo halkan academy xubnimadeeda maxay tooyeen waqti ku soo qaatay mas'uul ka soo noqday soo hogaamiyay wax u qabtay heer soo gaarsiiyay aad baan shakhsi ahaan hanaan caawa ugu mahad celinayaa kala caawa dareenkayga lama soo koobi karo waa mid farxadeed oo waliba oo ku soo yara taagan tahay kullay iga raalihaada kullay waa farxada kullay waa dareen maxay tooyeen waa dareen aniga kullay khaasa kullay halkan waxaan aaminsanahay in ay kooxaha kale oo dhan kullay ka duwan tahay kullay bartilka la soo qadhigay dadku sidayeen soo bandhigayeen waxaan ka mid ahay ardayda iyaguna sidoo kale kooxaha kale ka yimiday waqtiga aan jooga halkan waa waqti 3 sano ah alxamdulillah rabbil caalamiin kullay ismaan lahay maanta dhaqanka halkan baad ka soo gaadhaysaa ama dhaqan baad ku soo dhex jiraysaa waxaan aaminsanahay inaan dhaqanka ka dhex bixi doono muddo kooban oo ku jira laakiin se hami waxa ay ku dhalisay halkan inaan halkarka heer ka gaadho waxaan hamigaygu yahay insha Allah inaan heerka ugu sareeyo halkan ka gaadho noqdo dadka rahantii ugu rugcadaysan haddii dhaqan la soo hadal qaado noqdo number 1ka hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaad leeyahay sanad guuro wanaagsan waxaad leeyahay horumar wacan waxaad leeyahay kullay sanad guuradeeni 8aad weeyaan waxaad leeyahay sanad guuradeeni hambalyo halkan academy waxaan ku soo afmeerayaa runtii qof shakhsi aad igu qaaliya halkana ku qaaliya ummadana ku qaaliya waa Samatar Jaamac Migaag Samatar oo maanta halka heerkii taagantay halka soo gaarsiiyay waxa sidoo runtii kala hadlaya lama ilaawana shakhsi aad noogu qaaliya oo kullay isaguna noo soo labeeya oo noo soo raaca waa Xasan Cismaan Buuni oo leeyahay isagana waa Ilaahay garabkaaga ha galo intii tacab iyo xoog aad soo gelisan halkan idinkii intii idinka horeysayba waxaad leeyahay Ilaahay idinka jisaysiyo insha Allah waxaan ku soo meerayaa kullay ku saafariyaa miro ku ahshay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan aad ugu mahad celinayaa xarunta dhaqanka Hargeysa adeera Jaamac Muuse Jaamac oo ah shakhsi aad iyo aad runtii noo taageeray ama noo gacan qabta waxaan sidoo kale ilaahay karin oo bogaadinayaa aad iyo aadna runtii mar labaad mustaxil bogaadinayaa waa bahdi hidiyo dhowr khaasatan adeero Maxamed Cadaani iyo maam Sahar Halgan oo runtii waa labada goobood ee halkan si toos ah ugu diiwaan gashan tahay ahna meelaha ay ku tiirsan tahay ee maanta heerka maanta ay taagan tahay waxyaabo badan ka caawiyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh